أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada janalka aqoon official haddii aad janalka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee saaxiibada la wadaag waxaan dib u bilaabeynaa xalintii imtixaankii dowladda fasalka form 4 maantana waxaan xalinaynaa maadada xisaabta part 1 ayaanu ku horumaraynaa la socod wanaagsan part 1 multiple choice questions waa dooro jawaabta saxda ah waxaana saaran 40 maakis ayaa lagu saxayaa waana 20 su-aal xabadiina waxaa lagu saxayaa 2 buundo su-aasha ugu horeysa haddii aan fiirino the algebraic expression tibxaha algebra for half of x waa kala barka x waa a x plus 2 b x minus 2 c 2x d x over 2 haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka d oo ah x over 2 ama xa loo qeybiye 2 maadaama half la dhahay waa divide by ama loo qeybiyey su-aasha ku xigta ee labaad haddii aan fiirino cot x lagu dhuftay sin 2x lagu dhuftay sec square x waxay la mid tahay haddaba jawaabta markii aan furfurno maxay noqonaysaa waxaan haysnaa a 0 b 1 c 2 d 4 haddaba jawaabta sida ku imaada aan fiirino marka hore maxaa haysanaa cod waa bedelaynaa cod waxaa u dhigma cos x loo qeybay sin x lagu dhuftay sin 2x waan bedelaynaa oo waxay noqonaysaa 2 sin x cos x ayaan ku bedelaynaa inta oo idin sidoo kale sec square x waxaan ku bedelaynaa 1 over cos x dhammaantoodana waxaan gelinaynaa bracket whole square maadaama sec square ay tahay waxaan dhigaynaa 1 over cos x oo ku jibaaran dhammaantooda power 2 ayaan dhehnaa soo marka intaa aan sameyno waxay noqonaysaa marka waxaan isla bixinaynaa sin iyo sin ayaa isla bixinaynaa sin iyo sin ayaa isla bixinaynaa kor maxaan ugu soo haray cos x soo qaad haddaba waxaan isla bixinaynaa sin iyo sin ayaa isla bixinaynaa qaybta kore maxaan ugu soo haray cos x lagu dhuftay qaybtana maxaa ka soo haray 2 cos x lagu sii dhuftay waxaan sameynaynaa 1 laba jeer markaa isku dhufano waa 1 cos x markaa laba jeer isku dhufanana waa cos square x ayay noqonaysaa so waxaan sameynaynaa cos x tan iyo soo qaad cos x iyo 1 over cos square waa isla bixinaynaa waxaa ku hari doona hal xab ayaa ku hari doona oo ah 1 over cos x ayaa ku hari doona so waxay noqonaysaa marka 2 cos x oo ku dhacsan 1 over cos x ayay noqonaysaa sidoo kale markaa cos x iyo cos x waa remove garaynayna waa bixinaynaa 2 waxaa ku dhacayso 1 waxay noqonaysaa 2 ayaa jawaabta ka dooranayna haddaba jawaabteena hadaa usoo raabano waa xarafka c oo 2 ay ku xusun tahay su-aasha ku xigta ee saddexaad haddii aan fiirino the value of c qiimaha c ayaa laga rabaa ama angle c in the figure below sawirka hoose ee kaaga muuqda a waxaa haysnaa 50 degree b 40 degree c 60 degree d 70 degree haddaba si fiican sawirka u fiiri qaybta waa 90 degree waaye qaybta kalena ana waxaa haysnaa 30 degree waxaa raadinaynaa qaybta c ayaa raadinaynaa soo marka saddexda angal marka laisku daro meeqaa laga rabaa 180 ayaa laga rabaa qaybtan hadda way tilmaaman tahay oo 90 degree waaye waxaan ku daraynaa 30 degree meeqa waaye 120 degree maxaa ka dhiman 180ka waxaa ka dhiman 60 degree ayaa ka dhiman haddaba jawaabta saxda waa c ayay noqonaysaa 60 degree su-aasha ku xigta haddii aan fiirino afraad the expression tibixda cubic radical cubic 16 lagu dhuftay cubic 4 is equal to wuxuu la mid yahay so labada cubic waa isku mid hal xabaa ka soo qaadanaynaa 16 ku dhufo 4na meeqa waaye waa 64 cubicna waxay ugu baxdaa 4 ayay ugu baxdaa waxaan ka dooranaynaa xarafka b ayaan ka dooranaynaa oo 4 ah su-aasha ku xigta ee shanaad haddii aan fiirino the number tiradan 20.3 haas wuxuu leeyahay way bannaan tahay significant digits tirooyinka muhiimka ah a 2 b 3 c 4 d 5 haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka d oo wuxuu leeyahay 5 significant figure ayuu leeyahay dhammaan tirooyinka muhiim su-aasha lixaad haddii aan fiirino a group of kooxdan 250 arday took a test ayaa laga qaaday tijaabo if
76% haddii 76% ay baaseen, how many students passed? Imise ayaa arday ayaa baastay? haddaba waxaan ka doonayaa inta arday ee gudubtay ama baastay. jawaabta saxda ah a 100 degree, boqol, b 190, c 200, d 60. haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka d oo ah 190. haddaba sidee ku imaaday? waxaan samaynaynaa 76daas waxaa u bedelaynaa decimal oo 0.76 ayay noqonaysaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa 250 ku dhufanaynaa. su-aasha 7 haddii aan fiirino, haddii a ay la mid tahay tirooyinkaas ay la mid tahay haddii tirooyinkaas la mid tahay 2, 3, 3, 4, determinant a soo saar. determinant a haddaba wuxuu noo noqonayaa a waxaa haysanaa 1, b 9, c -1, d 8. haddaba jawaabta saxda ah waa -1 ayaan ka dooranayna oo xarafka c ah. sidee ku imaaday? determinant waxaa lagu helaa labadan oo isku dhuftay oo laga jaray labadan oo isku dhuftay. 4 2 ku dhufo waa 8, 3 3 ku dhufana ka jar 9. 8 markaa ka jarno 9 waxaa noo soo baxay -1 ayaa noo soo baxay. haddii aan fiirino qaybta ku xigta su-aasha 8aad haddii aan u gudubno, su-aasha 8aad haddii aan u gudubno, find the area of rectangle, find the area of the rectangle below. soo saar bedka rectangle-kan ee kaaga muuqda sawirka kaaga muuqda. waxaa haysanaa 3 plus radical 2 centimeter oo lagu dhuftay 3 minus radical 2 centimeter. so marka waxaan samaynaynaa 3 iyo 3 isku dhufo waa 9 radical 2 waxaa ku dhufanaynaa minus radical 3, so waxay noqonaysaa minus 3 radical 2. qaybta kale markaan isku dhufan waxay noqonaysaa iyadana 3 radical 2 minus iyo plus isku dhufo waa minus, so radical 2 markaan ku dhufanana waa radical 4 ay noqonaysaa. so 9 ka soo qaad, labadan radical calaamad ahaan way kala duwan yihiin laakiin qiimo ahaan waa isku mid, way isla bixi doonaan ama way kala jarmi doonaan. minus ka soo qaad, radical 4 xeed ka saar waa 2, kadibna kala jar waa 7 oo xarafka c ayaan ka dooranaynaa. part 1 halka ayaan kusoo gabagabeynaynaa. la socda qeybaha xiga. waa ku mahadsantihiin daawashada. hadduu idinku soo gaaray muuqaalkana like garee oo meel dheer gaarsii, saaxiibada la wadaag. mahadsanidin.